kiigaygeena ammaan geli waaya inaynu gubayno waan garanaye garabkiinaan soconaye geshkayagoo guulaysta guulaysta guul lagu reebiyo guulaysta soo waqtigeedii lama joogo hadda in cadow laga xoreeyo dalka ya in biyaha iyo caanaha lala daba socdaa la rabaa ciidanka in cadowga dalka laga xoreeyo la xasiiyo la rabaa sideedana kooxaha kubadda dheela haddaan isbartiiba dhisnayn may dheeli karaan isbartiibada siyaasadda lagu cayaaro ama garoonka lagu cayaaro siyaasaddu waa amni iyo xasilooni iyo shacbiga oo aad ka gadato fikirkaaga u dhiibato ee qaylo iyo xoog ma waxaan rajaynaynaa marka gobolka banaadir aan u soo noqonayaa gobolka banaadir waa nala hadleen caawa kooxaha kala duwan ee halka ka soo jeedshay murtida waxay nagula hadleen inaan qaadanaan rabnaa safiiraan idin naqanaynaa waana gaarsiinaynaa shacbiga ku nool magaalada muqdisho gobolka banaadir iyo soomaaliya guud ahaanba waxaan hadda xasuustaa canshuurta bixiya qof kastoo muwaadina wuxuu rabaa laami nadiifa oo qurux badan oon karikation iyo dhagax lahayn inuu gaariga ku wato wuxuu rabaa kabihiisa hadduu soo baalashtay oo lugeeyo inayna boorka yeelanoo laami nadiifa uu maro canshuurta inuu bixiyana ma rabo ma isqaban karaan dadka canshuurta inay bixiyaan muwaadin waxa ah qofka canshuur bixiya qofkaan canshuur bixin muwaadin ma aha khaa'in waay waxaa la rabaa marka dadku inay intaa gartaan guubaabadiina waa ku faraxsannahay gobolka banaadir dhinacan fiiri waxaad arkaysaa nadaafadii oo socota dhinacan fiiri jidadkii oo la dayactiraayo dhinac kale fiiri sportigii iyo tartankii dhinac kale fiiri waxaad arkaysaa banaadir bandi oo dadkii hanuuninaya maxaa ka dhiman marka waxba kama dhina guul baan u rajaynaynaa kulligeen waxaan isleeyahay anigu haddii ummaddu sidaa u wada shaqayso horumar ayaa la gaari karaa haddii ummaddu ay wada shaqayso sharaf iyo karaamo soomaaliyeed baa la gaari karaa haddii la wada shaqay waayo oo shacbigu dowladda la shaqay waayo oo ciidamada la shaqay waayo waxa uu ku haminaya isaguna arki maayo in lala shaqeeyaa la rabaa dowladda qofka hambi oo uga jiro inuu tartamee dalka madax ka noqdana inuu la shaqeeyo midka hadda fadhiya la rabaa berita hadduu asigu guulaysto si loola shaqeeyo waxaa la yidhaahdaa nacaybka saddex waaya la yidhaahdaa waxaa jira la yidhahdaa isir nacayb waxaa jira la yidhahdaa fal nacayb iyo fool nacayb isir nacaybku waa cidda aan rabin soomaaliya jiritaankeeda iyo sharafkeeda ama ajnabi ha ahaadaana ama kuwa midaba ha nugu magaca ha ahaadaane isir nacayb baa la yidhahdaa kuwaasu dawama leh fal nacayb waxaad qabanaysa hadday fiican yihiin u nacayaa fal nacayb baa la yidhahdaa inuu wax qabtana ma rabo haddaad wax qurxan qabatana adoo kula diridhaa fal nacayb baa la yidhahdaa fool nacayb waa qofka shakhsi nacab wuxuu ku nacab yahay isaga yaqaana oo shakhsi ahaan dhahayo hebel waa nin stupid waay hebel stupidad waay sababna uma yeeli kara marka kaasu dawama laha waxaan rajaynayaa marka in Soomaaliya laga guuro xujooyinka raqiista ah ee weeqi kara horumarka iyo meesha ay higsanayso ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed cidaan u naxayno waxa lagu sifay karaa inayna garanayn meesha laga keenayo sida lagu keenay la xajayla iga hay cali maxamed geedahan waa fadhiyaan aan filayaa xukuumadeedii aan hogaaminayay iyo dawladdii aan ka tirsanaa dadka soo shaqeey meesha waa fadhiyaan waxaana kamida gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada oo wasiiri ah marka in dowqaygu fiicna iyo xulkaygii waxa cadeey hadda madaxweyne farmaajo magacaaba asaga waxaan qabaa marka Soomaaliyeed la xajayl cid oo ka haya qarannimo Soomaaliyeed ha iska iloobo hab dhaqankaas aan siyaasad ahayn ee aan sheegay sifooyinka nacaybka ku salaysan